magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midowga maalintii shalay uu ka dhacay qarax ismiidaamina oo lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo askar ilaalo ka haysay afafka hore ee garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa maanta xaaladeedu ka duwan maalintii shalay oo ay ka socotay qabanqaabo lagu soo dhaweynayo wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble wadooyinka weyn ee magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xiran sidoo kalena waxa saameyn uu ku yeeshay qaraxaasi ganacsiga ka jiray magaalada Gaalkacyo shacabka reer Gaalkacyo ayaa saaki lugeynaya waxaana gaadiidka loo diiday inay isticmaalaan wadooyinka qaar oo horey u isticmaali jireen qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa lagu dabiibiyaa askartii iyo shacabkii kale ee waxyeelada ay ka soo gaartay kuwaasi oo hadda xaaladooda caafimaad qaarkood ay ka soo reynayso aroortii hore ee saaka ayaa qabuuro ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo waxa lagu aasay gudoomiyihii hore ee degmada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Jaamac Tumay oo ka mid ahaa dadkii shalay ku geeriyooday qaraxii ismiidaaminta oo ka dhacay afafka hore ee garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise Maxamuud aaskiisa ayaa waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland sidoo kale gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa in magaalada Gaalkacyo lagu aaso saraakiisha kale ee ku geeriyootay qaraxii ismiidaaminta ee ka dhacay afafka hore ee garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise Maxamuud ee magaalada Gaalkacyo waxaana aaskooda lagu wadaa inuu ka soo qayb galo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odwa iyo madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka Galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kuwaas oo hadda ku wada sugan magaalada Gaalkacyo Libna Cajiib Xaaji TV-ga caalamiga Universal Gaalkacyo